doonayno inaanu ka dagaalamo magaceeda waa inaanu sheegano laakiin jacayl aanu qabiil reerkaa la yidhaahdo ogaadeen ee la yidhaahdo aanu jecellahay ama aanu u xaglinayno haba yaraatee naguma jirto waxaad tihiin odayaashii dalkanaad tihiin magac alla magacii ummaddaa danteeda ah ee idinka odayaasha iyo hogaamiyayaasha aad u aragteen inuu ummaddaa iyo halgankeeda uu maslaxadu yahay keena idinku keena kaasaa noo go-aan aanu qaadanayna haddaad odayaashii dalkan aad tihiin soo dooda soo kala roga magaca aad isleedihiin ummaddan u mideeyada oo dalkan maslaxadiisa ah dadkan iyo dalkan maslaxadiisa ah keena isagaasaanu subaxa dambe aanu ku dhawaaqayna aanu qaadanayna haba yaraatee qabiil reer ogaadeenee la yidhaahdo dan gaarahoonu ka leenahay ma jiro maxaa yidhi dalkana isagu mooda degana waa dal weyn oo ballaadhan oo soomaali degan tahay soomaalidaas oo dhan baa ehelkaya ah soomaalidaasaanu u dagaalamaynaa dalkaasaanu u dagaalamaynaa maslaxadda ummadaasaanu doonaynaa wax alla wixii xuquuqda ummadaasaanu doonaynaa gobolladooda oo dhan baanu doonaynaa qabiil reer hebel la yidhaahdo ma doonayno qabiil reer hebel la yidhaahdo uma dagaalamayno absolutely naguma jirto fikrad noocaasi naguma jirto weligayna ma ayna soo marin yani golaha dhexe waxa weeye waa mar walba tii uu ahaa dhowr iyo 60 buu marmarka qaarkood uu gaaraya naguma jirto ilaahay horti naguma jirto magac reer iyo dan reer maalin maalmaha kamid weligay uma aanan dagaalamayn waxaanu u dagaalamaynaa danta ummadda Soomaalida ee gobolka degan waxaanu u dagaalamaynaa xuquuqda ummadaas ay lahayd baan u dagaalamaynaa waxaanu doonaynaa dadkaas inuu helo waxa xaquraha inuu helo ayaan doonaynaa haddii magacan lagu gaari karayo okay waxba kama qabno haddii mid kale oo ka fiican la helayo welcome keena idinka odayaashii ummadaas keena kaasaanu qaadanayna marka horta odayaalo waan halkaas sidaa noo ogaado oo si daacadnimo ah oo sidaa nagu kalsoonaada inaanan qabiil wakiil ka ahayn inaanan qabiil u halgamaynin oo aanan qabiil dantiisa raadinaynin waxaanu raadinaynaa ummadaas danteedaanu raadinaynaa wadada wasiilada ugu haboon ee hadba lagu gaari karo hadii magac kale oo fiican aynu helo oo lagu gaari karayo kaasaynu qaadanayna waxaan u maleynayaa ummadda ugu haboon inay magac bixiso ama ay soo iyadu ururso waxaan u maleynayaa dad idinka haboon urusan jir xilkaas hadaba idinkan maanta idin sheegaya haddaad heshaan magac aynu xuquuqdeena ku gaarayno oo wanaagsan oo ummadaas mideeya idinka odayaasha idinkaan idinka sugeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.